السلام عليكم marka dib u akhrido xadiisida nabigeenu sallallahu alayhi wasallam inagula dardaarmayo midnimada iyo wadajirka walaaltinimo waxaad dareemaysaa marka aad dib u eegto taariikhda ee aad aragto in muslimka jooga Morocco iyo Tunis uu halkaas uga damqanayay oo in uu difaaco isku dayay muslimka jooga Turkistaanta bari ee Iigoorka uu shiinuhu haysto waana markii aynu haybada lahayn ee wax leeyniga xisaabtamayay ee haddii darafka adduunka midkan lagu dhirbaaxo lagu xisaabtamayay in darafka kale lagaga kaco haddana markaad maanta dib u eegto inta dal inta calan inta xad iyo inta kala qaybsan ee dhex taala ee iyada oo ka kugu xiga la cunayo aadan u digiigaxanayn ee aad odhanayso ma isku xad iyo isku dal ayaanu nahay murugada iyo dhilada ay kugu qabanaysaa ma aha mid qiyaas leh in dheergarad ayuunbaana waxaan tilmaamayo fahmaya ee indhow garadku ha iska maqnaado innaba garadkuna yeelkii xilligii khilaafada islaamka ee Cusmaaniyadu ay talinaysay ee ay muslimiintu ku wada dhaadanayeen marka ay gaaladu cadaadis saaraan ee muslimiinta xadkeeda ku jirta iyo kuwa ka baxsan qaarkood ay waxyeeleeyaan muslimiinta darafka kale ee adduunka ayay ka dalban jirtay inay la dagaalamaan gaaladaas markaas gumaystayaasha ahayd markaasay reer Yurub iyaga oo ka cabsi qaba iska ilaalin jireen inay muslimiinta waxyeeleeyaan halaaga ba'an iyo waxyeelada hagardaamada ee ay geysteen reer Yurub ee muslimiinta u geysteen intii ay gumaysanayeen waa dumitaankii khilaafada ka gadaal oo markii ay khilaafadii meesha ka saareen ayay gobol walba gaarkiisa naqaska ugu dhajiyeen oo halkiisa madaxa cirib kaga garaaceen aynu nimaadno markaas qadiyada daaran Axmed Guray iyo sidii uu Masar uga badbaadiyay macaluusha iyo gaajada sidii aynu hore ugu soo qaadanay barnaamijka aynu ka diyaarinay dagaalka biyaha macaan waxaynu soo qaadanay xog ahayd in isha ay Masar ku nooshahay ee dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaanba ay ku tiirsan tahay ay tahay webiga Niil Masarna gaalo oo dhami madaxa ayay kaga taagan tahay oo in ay madaxa la kacdo waa laga ilaaliyaa oo Masar haddii ay noqoto dawlad maamulkeeda u madax bannaan adduunka iyada ayaa ka arriminaysa marka loo eego barta ay dhacdo istiraatiijiyadeed sidaas awgeed ayuu marka kalitalis kursiga ay gaalo saartay ka degaba kalitalis kale loo saaraya oo ummadaas gacan biro loogu maamulaya haddaba muddo ilaa 6 qarni ee u dambeysay adduunku si wanaagsan ayuu u fahansanaa in Masar isheeda noloshu ay tahay webigaas Niil cidda doonaysa inay Masar dusha ka maamusho oo u talisaana ay webigaas uun gacanta ku dhigto webigaas Niilna waxa uu ka soo kala rugmadaa laba deegaan oo kala Ethiopia iyo Uganda sababaha ugu waaweyn ee Ingiriisku Uganda u qabsadayna waxay ahaayeen in uu webigaas ka soo rugmaday Uganda isagu maamulo oo waayihii la dhisay kanaalka Suez siyaasadda uu ka lahaana waxay ahayd si hadiiba ay dhacdo oo dhanka Suez kanaal lagaga adkaado uu isaguna dhankan webiga uga jari karo yacni qarniyo ayaa loo gucleynayay sidii Masar looga jari lahaa webigaas dhunteeda ee nolosheedu ay ku tiirsan tahay Ethiopia maanta waxa ay geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaysaa sidii ay Masar Niilkaas uga jari lahayd ee ay iyadu halkaas uga maamuli lahayd qof kasta oo Masaari ahi waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayo danaheedana ay halkaas uga dhamaysan lahayd taasina waxa ay sababtay inay webigaas ku taxdo in ka badan 100 biyo xidheen oo yaryar kii ugu yaraana waa kan ay dhaweyd bixiisadiisu taagnayd ee ay isku haysteen Masar oo waa ka ay ugu tala gashay inay mashaariicdaas yaryar ee biyo xidheennada ku soo afmeerto sidaas ayayna ugu gucleynaysaa dhisida biyo xidheenkaas mar haddii aynu isla fahanay sida webigaasi Masar muhiimka ugu yahay haddii laga jaro inay Masar macaluul maranayso oo noloshoodu ay webigaas ku tiirsan tahay iyo sababta looga ilaalinayo inay adduunka saameyn toos ku yeelato aynu nimaadno Axmed Guray halyigeenaasi sidii uu uga badbaadiyay Masar macaluushaas waxa uu ku xusayaa buugga an-nizaac as-Soomaali al-Ethiopi ee Ali Ahmed Nuur buuggiisa 430 ilaa 530 xog u dhigan sida tan markii la soo gaaray 1400kii ayay dawladda Cusmaaniyadu bilowday inay Yurub hoos ugu dhaadhacdo iyada oo dhex jibaaxaysa Yurubta bari oo deegaano badan ka qabsatay waana kadib markii ay Qustandiniya qabsatay dawladdaasi reer Yurub dhankaas walwal laxaadle ayaa ka soo fuulay dhanka kalena qolyihii dagaal oogayaasha ahaa ee dagaaladii macatablayda waday waxa la fudhun gashay oo ay ka talaabi waayeen ku noqotay Masar oo markaas xooganayd oo iyaguna halkaas talaabo wax ku oolo way ka soo qaadi kari waayeen kadib waxa uu ku guuleystay baadarigii guud ee markaas Kristanka u arriminayay inuu heshiisiyo labada kaniisadood ee Tabari iyo Tagalbeed ama kaniisadda Orthodoxka iyo kaniisadda Kaatooliga waxana uu ku guulay Kristanka bari ee Orthodox oo ay xabashaduna qayb ka yihiin inay sameeyaan jabaad xooggan oo ay ku waajahayaan muslimiinta
oo dhankaas bariga ay ka soo cadaadiyaan qoladaas kaatooliga ahina ay dhanka galbeed ka soo cadaadiso kadib in badan ayay isku dayeen inay boqoradaas reer Yurub la xidhiidhaan xabashida balse uma ay suuro gelin ilaa laga soo gaadhayay markii uu Vasco da Gama daafayday ee ka tallaabay Ras Rajasame ama Cape of Good Hope ama magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika 1497 ilaa 1499 markaas ayuuna bilaabmay xiriirka ay Kristankaas reer Yurub la leeyihiin xabashidu waxaana ay u soo bandhigeen inay Masar dhanka hoose kaga yimaadaan xabashidu oo xaggaas ay cadaadis ciidan ka soo saaraan oo iyaga Masar lagu haleeyo balse Masar waxa ka sokeeyay muslimiinta oo dhan waxa ka sokeysay Suudaan mana ay awoodeen xabashidu in ay ciidan ahaan Masar u waxyeeleeyaan ama u qabsadaan ama ba ugu ambabaxaan xataa dhankooda kadib ayay haddana dejiyeen reer Yurub oo iyagu markaas Masar iyo waqooyiga Afrika kala yaqaanay qorshe iyo kaarto kale oo ah in Masar ay Itoobiya gaajaysiiso oo dhuunta u fadhiisato waa kadib markii ay ogaadeen in Masar ay ku tiirsan tahay webiga Niilna uu ka soo rugmado dhanka Itoobiya markaas loo soo dejiyay Itoobiya qorshaha biyo xidhankan maanta xiisadiisu taagan tahay qorshihii ay ku dhisi lahaayeen loo soo dejiyay Boortaqiiska oo markaas ahaa awoodda badda ugu mudan ee Kristanka ahina hiil iyo hooba uu isla garab taagay xilligaas ma ay lahayn gaaladaasi awooday webigaas biyihiisa ku xidhaan ee waxay doonayeen in ay marinkiisa leexiyaan oo meel aan Masar ahayn ay afka u saaraan oo marsiiyaan qorshahaas ayayna u howlgaleen waxaana sanadkii 1450 u soo diray dhambaal rasmi ah xabashida boqorkii Aragon ee aagii dawladii Andalus ee Alfonso isagoo si rasmi ah uga dalbanaya in ay u guntadaan leexinta webigaas Niil iyo gaajaysiinta muslimiintaas Masar waliba waxa uu ugu soo daray inay mashruucaas fulin karaan xabashidu isaga iyo Kristankii kalena ay aad ugu xamaasadaysan yihiin mashruucaasna ay fuliyaan inta uu Alfonso duulaanka ku qaadayo ee qabsanayo Qudus iyo Falastiin oo labadaas dhanba mar qura muslimiinta laga garaaco Masarna aanay awoodeyn in ay wax ka dhiciso Falastiin janankii markaas hogaaminayay ciidankii badda ee Boortaqiiska ayaa go'aansaday kadib markii ay isku dhaceen dawladii mamaaligta ee Masar iyo Boortaqiisku ee ay Boortaqiisku daafeydeen cidhifka hoose ee Afrika ganacsigii Masar mari jirayna ay hakiyeen inuu si rasmi ah qorshahaas u gudagalo oo uu soo dejiyo Masar tan la buuqaysa qayladeeda sidii uu soo afmeeri lahaa webigaasna uu ka leexiyo oo dhuunta u fadhiisto kadib waxa uu dhambaal u diray boqorkii Boortaqiiska isagoo ka dalbanaya inuu doonayo inuu mashruucii gudagalo uuna boqorkaasi u soo diro shaqaale badan oo fundiyo ama wastaado ah oo biyo xidhankaas webiga lagu leexinayo dhisa fikradiisaasna reer Yurub iyo xabashidiiba way ku qanceen oo waa loo howlgalay sidii loogu soo diri lahaa kaalmo saad iyo rag shaqeeyaba ah kadib waxa loo howlgalayba sidii loo dhisi lahaa webigaas darbiga lagu leexinayo markii mashruuciisii la diyaariyay ee xataa dhagaxaantii lagu dhisi lahaa buuraha laga soo jafay ayuu ka warhelay Axmed Gurey shirqoolkaas weyn ee islaamka loo dejiyay ee ah in Qudus la qabsado marka ay istiraahdo Masar wax ka dhiciyana webiga laga jiro oo la gaajaysiiyo marka ay istirahdaan Cusmaaniyiintu wax ka dhiciyana Yurubta bari oo dhan oo Ruushku uu garwadeen ka yahay lagu kiciyo shirqoolkaas saddex geesoodka ah ama siyaasaddaas subboodada ah ayuu si uu uga warhelay Axmed Gurey isaguna markaas tii uu wax ka qaban karayay waxay ahayd taas ay wadeen xabashidu ee ah gaajaysiinta Masar kadibna dagaal ba'an ayuu ku qaaday oo mashruucaas gebi ahaantiisaba sidaas ayuu ku soo afmeeray duwistii webiga Niil iyo gaajaysiinta Masarna sidaas ayuu ku joojiyay Saliibiyiintii ama Macatableydii ama isbahaysigii Kristanka ee doonayay inay qabsadaan Qudus mar kalena qorshahoodii sidaas ayuu ku soo afmeermay oo riyadoodaas ay ku burburtay inahaas ayuu ku ekeenayaa buugga ka sheekaynta qisadaas ilko abeeso hoos ka xiriirsan mahma Soomaaliyeed ayaa ahayd waxa isaguna mashruucaas ah gaajaysiinta Masar ku lifaaqnaa in Boortaqiisku ay doonayeen inta ay ka tallaabaan Baabel Mandab oo badda cas ay raacaan oo Sacuudiga ay gaadhaan ayba qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam tagaan oo inta ay qaataan Yurub geystaan jirka Nabiga sallallahu alayhi wasallam kadibna ay muslimiinta ku yiraahdaan nabigeennii dhammaa ayaanu gacanta ku haynaa ee wax kasta oo aanu idinka doonayno yeela qorshahaasna Axmed Gurey Ilaahay jannadiisa ha ku maamuuso ee ayaa fashiliyay oo soo afmeeray Boortaqiiska riyadiisaasna afka ciidda u daray sidaas ayuu Axmed Gurey dhanka kaga badbaadiyay dhaqankii islaamka dhanka kalena kaga badbaadiyay Masar gaajaysiin iyo macaluul badbaadada Masarna ay ku badbaaday Qudus oo la qabsan lahaa badbaadada Qudusna ay ku badbaaday Cusmaaniyiintii oo marka ay isdhaahdaan Qudus difaaca iyagana la jeedi lahaa waxaana uu ka badbaadiyay Axmed Gurey qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo jirkiisa sharfan in lala baxo oo Yurub lala tago
waxaan filayaa inaad iminka si wanaagsan u fahansan tahay sababta intan oo dowladood, intan oo xad, intan oo calan iyo intan oo qowmiyadood laynoogu kala dhigay ee aynan awoodaynin inaynu dagaal iyo nafqaybsi yeelanno iska daaye inaynu xataa ciyaar kubadeed isku taageerno. si wanaagsan ayaynu hadda u fahansannahay sababta loo qaatay Falastiin, inagoo wada eegayna sababta loo qaatay Soomaali galbeed, inagoo wada eegayna sababta loo qaatay Soomaali koonfureed ama NFD, inagoo wada eegayna sababta islaamka meel walba loogu garaacayo, inagoo wada eegayna sidoo kalena inaad si wanaagsan u fahantay sababta ay Soomaalidu 10 maamul ugu sii kala furfurmayso ee midibaka ku xiga uu cadawga ugu yahay, kuwa ka talinayaana aanay ahayn dad taariikhaya oo wixii soo dhacay og ee ay yihiin dad ay calooshoodu shaqayso, garaadkooduna uu hungurigooda ku jiro. Wassalaamu calaykum.